بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada shabakada Seextiis aad uga barateen inay idin soo baahiso cilmiga tiknoolajiyada casharkeenan wuxuu ku saabsan yahay sidee baad xogta moobilkaaga aad ugu kaydin kartaa ama aad uga sameyn kartaa wax la dhaho backup hadii ay hodhow ka luntana aad si fudud dib ugu soo celin kartaa waa talaabo runtii aad u fudud laakiin aynan inteena badani dareensanayn waayo waxaynu aragnaa in dadka badani intooda badan ay arkaan ama ay xogtooda intay ay delete gareeyaan ama si fudud ay gacanta uga dhacdo hodhowna awood u yeelan waayaan inay soo celiyaan laakiin maanta waxaynu baranaynaa xogtaada in aad dib u soo celin kartid haddii ay ka lunto sidoo kale in aad marka hore taxaddar aad ka yeelan kartid si mataqaanaa datadaas aad awood ugu leedahay inaad soo celisid si fudud waxaynu tagnaa haddii ilaahay idmo meeshan ay ku qoran tahay photoska mobile walba oo Android ah automatic ay u wataa markaan gudaha u galno waxaynu dooranaynaa dhinaca kore bidixdaada markaan waxaynu dhinacan ka arkaynaa options fara badan waxaynu ka dooranaynaa meeshan ay ku qoran tahay kadibna settingka markaynu tagno waxaynu arkaynaa meeshan ugu sareysa inay ku qoran tahay backup and synchronization waan ku dhufanayaa waxaa laga maarmaan ah haddii ay halkani off ka ahayd in aad ka saartid oo aad ka dhigtid on kadibna on marka aan ka dhigo waxaa sidoo kale uu weydiinaya backup device folders dhammaan meelahan tigta ayaad saaraysaa si mataqaanaa aad intaad u baahan tahay automatic backup uu sameeyo tigta ayaad saaraysaa kuwa aad u baahan tahay in backup lagaga qaado oo aad hodhow awood u leedahay inaad soo ceshan kartid okay folderadan oo dhan sidoo kale waxaan dooranayaa videosyada haddii aan u baahanahay tigta ayaa waxaan on ayaan ka dhigayaa sidoo kale waxaa iyagana laga maarmaan ah inaad ogaatid photoskana waa kana tigta ayaan saarayaa markaan tigta wada saaro dhammaan fayliska iyo folderada aan u baahanahay inaan back ku sameeyo oo aan on ka dhigo kadibna waan ka noqonayaa waxaan imanayaa iyadana xaggan hoose oo ah Google Drive-ka oo ah meeshii uu xogta ku kaydin lahayd haddii on off ka tahay waa inaad on ka dhigtaa iyadana aad bay muhiim u tahay synchronize wayna tiraahdaa kadibna intaa markaad samaysid waad iska soo noqonaysaa automatic halkan ayuu uga bilaabayaa xogtii waad aragtaan hadda backup-kii halkan aad ka aragaysaa nambaradii isagoo ku tirinaya ilaa intuu ka dhameynayo ku soo qoray backup complete isaga ayaa dhameystiray hadda waad aragtaa backup complete buu soo qoray dhammaan xogtii mobilkii ku jirtay oo dhan wuu qaaday barnaamijkan wuxuu ka anfacayaa haddii xogtaada ama mobilkaaga xogta ku jirto oo dhan ay istirtirto si automatic ah in xogtaadii aad dib ugu soo ceshan kartid fadlan la wadaag asxaabtaada si ay iyaguna uga faa'iideystaan